السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا شافي حسين عيدة يعني إلا عبد الله دورو waxaanu doonaa halkan in intii qaybtii labaad ee one coin one life aanu kaga hadalno habeenkii dhaweyd aanu qaybteedii hore ka hadalay una maqnayn inaanu ka helo waxyaabo information aanu ka helo aanu dad wareysano bal dad ma nala soo hadlaan nala soo xiriiraan dad badan baa nala soo xiriiray nala soo hadlay comment noo reebay intaasba waxay u baahnaayeen in ay ka hadlaan oo ay markii hore rabeen cid u hadashaba oo soo hadal qaada one coin one life in badan baa dad badan baa ay dhibaataduna haysatay oo lacagtu ka maqnayd oo guryahooda kula jiray oo la aamusnaa oo de arki waayay dad kale ka hadlay laakiin markii anagu ka hadalay dad badan baa nala soo xiriiray oo anagana weydiiyay balan wax dheeraad ka ognahay waxaan u sheegnay inaan wax dheeraad ah oo badan ka ogeyn balse aan ognahay in lacagtaasu ay noqotay lacag si farsamaysan loo qaatay dad badan baan la xiriirnay oo kamid ah leedaradii iyo dadkan keenay ama anagana keenayba markaanu saa ula xiriirnay waxaa naloo sheegay oo leedaradii noo sheegay inay sugitaan ku jiro processka u socdo systemku caadi yahay oo waxaas u socdaan laakiin aanay weli waqtigii ay publica noqonaysay aanay gaadhin si kastaba ha ahaatee markaanu maskaxo badan fikrado badan dad badan la hadalay oo aanu ururnay horta dad allaa dadkii nala soo xiriiray one coin one life ku jiray kamidka ahaa waxay nagu dhaheen ama yidhaahdeenba ay ka hadlayeenba in aanay iyagu wax allaala waxay kala socdaanba jirin markii ay soo galayeen qaabkii lahaa u soo galaa kusoo yaaca un ay kaa xirmin adiga idlisaada dhowr qof baa kula soo hadlay oo aad la hadashay intaas dhowrkaa qof markaa maxaa dadka ugu badnaa ee kula soo hadla maxay ka hadlayeen qaab noociya waxay ka hadlayeen sidii systemkii marka hore ay kusoo galeen iyo waxyaabihii ay kala kulmeen kadib sax marka waxay yiraahdeen maadaama oo aan wixii hada ku jirno wixiina ay wax waliba hada furan ay yihiin waxaan ka filaynaa in maalinta kasii dambeysay in waxaan soo bedelayo rajada ay soo dhawaanayso sax marka waxay leen aad iyo aad baan hadda maantadan rajo beel u nahay laakiin wax ka hadlayabo waaba wayno inaan wax kala garan waynay anaga kaliya ku jirno waxani iyo wax dad badan oo ummad fara badan ku jirto oo Soomaali fara badan ku jirto inuu yahay marka waxaan ku leenahay waxaan waa kaligiina ma ahan walaaladan qaba anaga way badan baa waxaan u qarsareeyay oo aan lahayn u kaadiya laakiin hada wixii marka waxay noqotay inaan wax looga aamusi karabo inuusan ahayn oo ay tahay wax laga hadlo si dadkii hadii ay isku howlahan ay ku wada jiray hadii dhamaantood ay isfahmaan oo hadii ay waxaan wax si aad wax yar khaldan wada haysatid oo laga horeeyo barnaamijka laga horeeyo hadii laga caawiyo hadii aad waxba hadii marka iyada oo laga caawiyo ay jirin wixii systemkii isku mid yahay waa on isla oyno marka dadkii markaan wixii aan galnay oo aan gudaha u galnay bal adna kaaga fur oo waxyaabihii barnaamijyadii lagu soo kordhiyey iyo wixii markaan ka fiirinay wixii waa isku mid wax isbedela iyagana ma haystaan annagana ma haysano marka sidaa aawadeed ayaan intaas kala soo kulmay dad badan oo kamid ahaa one coin one life in badanna kusoo jiray ayaa waxay raadiyeen in badan wararkeeda iyo halka ay marayso iyo xaaladeeda iyo bal qof wax ku iibsaday ama wax ku maxay lacag kala soo baxay ama ay jiraan sanad baa loo soo dhiibaa 2020ka imika la marayay sanadkii ugu dambeeyay 2021 hadana public noqonaysaa shaqaynaysaa sidii bitcoin oo kale markii hore waxay noqotay wax publica magaalada soo galay si fiicanna u shaqeeyay marka tan systemkeedu waqti dheer buu qaatay welina waa laga warsugayaa waxaan maraynayaa muquusta waa loo quustaa hortay imika weli dadku waa ku jiraa oo waa sugayaa rajul leeyahay aan ka dhaxgalay ayaan hore bisha 12aad 12aad may 12aad bay bilowgeedii yar ku jiraan wada sheekaysanay wuxuu ugu dhahay bishii labaad baan guriyaad ku iibsanaysaa lacagta guriyaad ku iibsanaysaa bishii labaad wax dhiman ma lahan bishii labaad adiga arkaya saddex isbuuc baa yaa sii la qayla in badan lacag jeebka saa loogu ururiyay oo jeebka loo aamini waayay oo barkinta la geliyay oo la barkaday oo loo aamini waayay baa halka ku baxday horta yeelkeeda wala soo jebi jiray horta taasu
way dhacday wax macno ma leh wax macno la maaha waa duuday adduunka dee farsama marba farsamo cusub baa socota marka dee farsamadii cusbaa markaa imika sanadkaa socotay wax lagu kala cun laakiin waxaan commentigii aan akhriyay igu qosolka badnaa wuxuu ahaa qofkii igu yidhi imika igu soo qoray xag waase commentiga sidee loo maxay hayday see laysu register garan karaa imika laysu qori karaa anigoo ka hadlayba in dadka waxoodii maqan yihiin baa anaga taayda xataa maqan tahay waxaa laga yaabaa anigoo kale a ku jiro oo inuu ninkaa la sheekaystay oo aan u sheegay wax yacni uu biqaado waayo oo bisha labaad ilaa bisha saddexaad dee faqrigu uu ka baxayo marka haddii ku dhawo bisha saddexaad baa faqriga baxaysa ma yeelaysid ninkaa ku dhawo meesha waxba kama jiraan marka ninkaas waxaan aaminsanahay in wax lagu shubay mameri baa saarnaa mamerigaas waxaa iskale walaalkay iska deji وكاسي ومومري فارقة magacaaga ma soo qaadanayo laakiin waxaan qoran lahaa kulay tashkiilad baa kugu socota tashkiilada kugu socota waxa weeye mid aan hore dad badan loo soo tashkiiliyey inaad hubsato oo aad in badan dhegeyso oo bal dadkii hore imsaad ku jirtay 5 sano 6 sano 7 sano maxaad ka heshay ayaa fiican sax fikradda cusub ee imika aanu doonayno inaanu kusoo kordhino ama aanu baadhno waxa weeye inaanu leedaradii soo fadhiisano horteeda ku dheedo leedaradii intaan soo qabano aanu soo fadhiisano waxa iyaga fikradahooda iyo waxay aaminsan yihiin ku dheeda aan halkan idinku soo gudbino laakiin mar kastaba muhiimaddu waxa weeye in xaaladeeda la socotaan dad cusubna dadkiina hore ee hore ugu jiray horta dad cusub ha keenina tiini meelka ka warrama أنا نكى مالك أنجلي وقعد عضاء وعدتك مسكحديس يا هذا الكيس وأنا أحسن لو قصدي لو يقول سديت تونك إلا سديت تونك مركز سديت تونك دميت سنة هذا مالينا ويقول أنا واحد عاق أجر بابا هذا مال كلام كلام كان سوقل ورشلان قضية ضربات وقضية كريه وحقول halkii wuxuu dhahay waxa kama jiraan waa bahabaaba aade anu waan ka tagay meel laakiin aad wax ka helayso ayaa jirto marka maanta aan ku dhaw meel wax ka helayso aan shalay ku keenay biriyadan ku dhaadana meeshaas aad wax ka helayso maxaad leenahay hatta haday jirto wixii hore wixii mar dhaca haday mar dee wax kugu dhacaan oo ay ku soo maraan xaalad cashar baa laga wax aad hore ugu socon lahayd oo aad cashar ku qaadan lahayd laakiin inaan bartiin sii taagnaado maalin kasta horta ma aha soo ma fiicneen niba 99 jeer qasaaray oo markii boqolaad u faa'iiday soo ninka ma fiicneen inaan sii daba galo aan tii labaadna aan la sii raadsado inaga marnaba filan mar yalla bis mar yalla نعم فضلنا هذا نيجا وجه ولا حرير كلام كل تي هراء كل ده ما أنا أروان ميل لقى بحكر ميل لو رك روان كبحنا وحاجة نصية كوسي ترميني معها كل ما قطع معها بتحسب واحد يطول عارك ما مركا ما أروان ده أديكو وقت شانس هذا لهاي هذا شانس كاجي سوقية لحظة كمان بحن لو كوس على شانس كاجي سوقية زادي هلكا رتي ولي كاجي شرتو دلقات كبدي ها لكن ضد كورت عصب إمك السوق ليا حقيقة دانو كهذا الله dadka cusub ee imika soo galaya ee raba qaabka u soo gali lahaayeen waxa weey horta meeshan hawaday ku baxday waa inta hadii filinkan jiir baa cunaya filinkan dooli baa cunaya marka inta imika sheekadaas ay halka marayso ee aan waxba ka cusbaan dad waaweyn oo ka hadlay aan jirin oo qofkii ka hadla xataa xaaladiisu haddii au meel group au kaga hadlo ama meel isugu yimaado meetingka ama zoomka ha haato au kaga hadlo horta qofkaas meeshaas waa ka maqan yahay marka qof ishubaa qofkan fikradiisa wuxuu ka dhaadhicin lahaa waxa jira iyo runta u sheegi lahaa laakiin qofka mar haddii la tuurayo waxa weeye qofka wax tuuraya inaan horta isku kalsoonayn waxa meesha inuu ku hay dadka iga waalin weey bari hore waxaa ka jiray idlow marka aan dugsi quraanka ama macaamada dhigan jirnay waxa arkaysaa qof macalinku wuxuu leeyahay ardaygaas ima fiicna way macaamada ardaydu iga saaqidinaya ama waalidku wuxuu oran karaa caruurteeda hay ka raacin waa saaqid baa tahay marka sidii oo kale waa mid jarjaro ama kubad iyo waxaado waxyaabo kale luqyada galo oo ku kala saaxiibkiis intuu ka xayado hadhowban xaafada aadayna xilliga dugsiga laga soo dareerayaan xaafada tagayna oo isku aadinayna waqtiga isku aadinayna marka dadkan uu taas baan u arkay hadii laga hadlo أنا هرت هل هبين بنك هذا هبين كيف ترى هل هبين بنك هذا أو ورقة عن سوق هذا ورقة عن شورنال عن أخرية ماشى صور ده كان كورة ما هرت شكله ولا سوق رأي
ma dhaba hawada lagu cunay marka maadaama ay saa tahay oo qofkii ka hadlaba au meeshii ka baxayo macnaheeda markaasaan horta meeshan waxba kama jiraan baanigu maadaama ila qofku saan ma aha buu odhan lahaa saan ma aha saan ma aha saan wuxuu jiraa wuu isixi lahaa laakiin qofku maadaama aanu waxba kuu sharixi karin oo aanu wixii jira kuu sheegi karin u fudud inuu adigu ku cunatay kalsoonida inaanu waxaan uu sheegayaana wax saxa aanay ahayn oo wax khalad ay yihiin ayaa meesha kaaga soo baxaysaa dad badan oo dadkii la soo geliyey ka mid ah ayaa haddaba waxay rabaan in ay lacagtoodii bal wuxuu naga soo noqoto oo ay dad cusub soo geliyaan oo ay dad cusub markay soo geliyaan wax yar ayaa loogu gooyo wax yar iyagana loogu gooyo si ay waxoodii ugu soo noqdaan dadkaasna waxaan leenahay bal horta dadkii hore ee bilaabay ee aan waxba ka fahansanin yeelkooda wixii hadday dadka wanaajinayeen hadday dadka islahaayeen kusoo dara oo lacag ha helaan hadday islahaayeen lacagtooda walaalka ha faa'iido intaba anu waxaan u arkaa wax dhacay wax wanaagsan baa yahay markaas laakiin maanta tan aynu taaganahay ma aha tii la odhan lahaa hebelow soo gal isagoo tiisi ba maqan tahay hebelow soo gal isagoo og xaaladda meesha ka taagan hebelow soo gal isagoo 5 sano fadhiya halkaa fadhiya la soo fadhiiso marka taasoo kale xaasidnimada ma fiican taasoo kale xaasidnimada marka in badan oo fiidiyogan daawan doonta waxay iyagu qudhooda isweydiin doonaan nimankan miyay ku kacsan yihiin 1.1 life maya kuma kacsanin raalli baan ka nahay anagoo raallikee baan galnay si fiican baa noolaga sheegay markaanu aragnay systemkan inaanu soconayn dadkii horena waxoodii kaga maqan yihiin kuwa kalena la keenay ayaa waxaan u naxnay kuwa dambe ee la keeni rabo kuwa dambe ee la keeni rabaan u naxnay maadaama dadkii horeba ay waxoodii kaga maqan yihiin dadkaasaan rabnaa inaanu ka wacyigelino in aanay wax aanay hubin waxooda aanay gelin wada khaldan inay ku lumin marka kolley adigu taas ku hakan mayno oo ku rafan mayno oo joogi mayno taas inaynu sii taagnaano laakiin waxaan rabnaa mar kastaba in aynu sii soconno oo aynu xaaladeeda ilaa iyo halka ugu dambaysa aynu gaarayno inaynu kusii soconno kolley dad badan oo waxaa arki jiray siyaasiyiinta marka la wareysanayo teleefonkii qaban waaye iyo meeshii igu ballamiyey ma joogo iyo wax noocaas aad iyo aad marka haddana imika leedarada kolley qaar badan baa gabanaya oo orsananaya dee yani maadaama meel waxba ku ogeynba maadaama waxa saxa aad sheegi karin wax xaqiiqa aad sheegi karin su-aaluhu ay kugu badanayaan maxaa dad ula hadlaysa hadda soo horkeenaysaa laakiin waxaan rajeynayaa insha allah inaanu kuwa kamid a oo bal dee hadda kuwa dadka tashkiilinta ku wada kuwii hore iska daa kuwa hadda dadka tashkiilinta ku wada soo jiidaya inaanu dhahno bal ka warrama xaaladiina oo dee iyagu qudhooda ay isdhahdaan bal halkan dadka kaga dhaadhiciya dadkan de waxaan wax jira yihiin annaguna aanu bartan ku qaban doono oo aanu su-aalo adag aanu ku weydiin doono kaa dhexgalay ayaan hore waxaa isbuuc hadda soo dhaafnay waxaa maqlayay waxaa loo sameynaya hanlayer waa isbedelay hanlegarkaa waxa wey qofki ku keenay oo qofkii ku keenay waxba ma ogey maxaa hanlegar kuu noqdaa marka dadki qofkii ku keenay ba hanlegar waa hanlegarkaa waxyaabahaadi informationkaadi kulli isaga aad weydiinaysaa si fiican dadki anagana keenay anagaa dhaana maanta qaar mudan maxaa marka nin adi dhaanto hanlegarkaa way sugayaan ma laga yaaba ma sugayaan way quusteen marka hanlegar quustay hadduu ku yahay kawar hanlegar oo dee ku yahay qof ku hagaya miya qofka ku hagi lahaa oo arrimaha dhan aad kala xiriiri lahayd si fiican waa qofkaas marka haddii qof quustaba uu ku hagayo kelmadda hanlegar ay soo istaagtay oo aan sii fasiray dad badan baa fahmeen maadaama luuqad ay tahay locaala laakiin calaa kulli xaal insha allah waxaanu dhex xiriiri doonaa dadkaas oo aanu meesha horkeeni doonaa halkan wejiyadiina aanu horkeeni doonaa idinkuna bal fikradahooda iyo waxay aaminsan yihiin iyo waxay isla hayaan inoo sheegi doonaa inta aanan ka bixin videogan waxaan idinka codsanaa inaad videogan dad badan sii gaarsaan sii sheergaraysaan subscribe ku qabataan si dad badan oo soomaaliya oo waxoodii maqan yihiin iyo kuwo rababa in imika la soo geliyaa ayaguna u ogaadaan dhammaantood ay uga faa'iidaystaan muhiimadda laga leeyahay horta waxa weeye in dadka dambe laga joojiyo oo looga digo inaan waxaan wax fiican ahayn waxaan haddii wax wanaagsan u noqdo mar kasta waa la geli karaya waxyaabaha hadda shaqeeyo
dhammaantood bitcoin hadaa caawa doonaysa lacag haysid aad iyo caawadanaad aad furanaysaa furanaysaa waxaa bitcoin waxaad ogtahay wax shaqaynaysa kani hadduu sidaa noqdo oo waxaan wax jiraba u noqdo markaa lacagta maanta aad la gariirayso cidladaad ku bixinayso markaa wax lahuba ku bixi aad iyo haddii kale jaga ku iibsano oo dhulkii wadanka kaga iibsado kolley waxaad ku qabsan kartaa marka intaanu aragti dambe aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.